Smart Optical hoyga muraayadaha ee Hargeysa meheradu waxay ku talaa burjuwa mar dabiqiisa labaad أروح يصبح أولا وقتي أفريقيا توستي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan muuqaalkeenin aadka u xisaab badan la kaga hadli doonaa koobka qaramada Afrika tartanka kaliya daqiiqada 58aad ciyaarta lagu dhameeyo nimaanta dhawaatirayna socdo waxaan sidneeyo wala uu Soomaaliyeed eedankii baa ku dhacay waxaan kala garan waayay inuu Ilaahay garanaya haayo inuu salaada maghrib ay gaadhay uu yiri ina marsha walaalayaal way soo tukanayna wala eedu wahayn baday Ilaahay ka baqay kusoo dhawaada videoga kan oo ku eegi doono koobka qaramada Afrika 2021 oo la ciyaarayo sanada 2022 Afrika halbood ku arkaysa maalinimada axadii hore 9 bishii January sanadan aynu ku jirnay 2022 caasimada UN ee dalka Cameroon waxa lagu daafuray koobka qaramada Afrika markiisii 3 markan koobka qaramada Afrika waxa ka qayb gali doona 24 dal oo kamid ah 50 iyo 40 dal ee qaarada Afrika ka kooban tahay iyagoo kula loolabi doona Algeria dalka difaacanaya koobka kan ahna xulka ugu awood weyn la kubadda ahaan qaarada Afrika waqti xaadirkan inkastoo aan Afrika waxa aqoonay labada ciyaarood ugu horeeyay Algeria ciyaartaba inna Sierra Leone bay barbar la galay tiikana xalalta Equatorial Guinea kabaha la dumarta muuqaalkeenan waxaan ku eegi doonaa qaramada ugu tunkan weyn la qaarada Afrika ee loo saadaalinayo inay koobka kana hanan doonaan waxaan ka maqnaan doonin inaynu 6 group ee koobkani ka kooban yahay mid waliba istuu istaagno kan muuqaal oran karmayna uu muuqaal dhaafay hay laabin sheerta iyo like-ta ku soo bir kanaalkeena haddii aad ku cusub tahay adiga oo subscribe taabanaya gambalaalkana furas uu ku soo gaaro muuqaal waliba markaan sidaa u soo gelinaa رجيدي أد بدو ما حسنت هذا تكون صوب برتكنالك صحيح هاتسني الله أنا طيب أنا بتهدم هاتسني إنه جودك الله مو قال كلمة سوري وهذا tartankan qaramada Afrika waa markii 3 soddonaad ee la qabto iyo markii 11aad lagu qabto dal kamid ah dalalka dhaca galbeedka qaarada iyadoo 10kii jeer hore lagu qabtay gobolkaas 7 jeer oo kamid ay ku guuleysteen isla dalalka ka dhisan ama ku yaala ama dhaca galbeedka qaarada Afrika taasi oo ka dhigan inay ku adkaan doonto dalalka kale ee ka imanaya cirifyada kale ee qaaradu inay ka faramuroojiyaan dalalka ku yaala galbeedka Afrika koobka kan ah ee lagu dhigayo gobolkooda Algeria ama Jazaa'ir marka yimaado 8 dal oo kale ayaa loo saadaalinaya inay ugu tuwan yihiin 24 dal ee ka soo qayb galaya koobka dalalkanina waa kuwan eega qabo Cameroon, Ghana, Senegal, Nigeria, Ivory Coast 5 dal oo dhaca galbeedka Afrika waxa soo raacaya Masar, Tunisia, Morocco oo iyana ku yaala waqooyiga Afrika dalka 8 aheen soo magac dhabnay iyo sidoo kale Algeria oo koobka difaacanaysa aanu mid u dul istaagnay aan ku horreeyay xulka koobaad ee muuqatay inuu Jazaa'ir ka furmuroojin doono koobkooda ay qaadeen 2019 Cameroon dalka martigelinaya koobka qaramada Afrika sanadkan Cameroon waxay ku gaashaamantay laba shay labadaba inta koobaad waa ciid oo dalkeedii baa lagu ciyaaraya ka labaadna waa rikoodh aad cajiib u ah iyadoo Cameroon laga soo bilaabo sanadii 1998 qaar badan oo idin kamid ah jireen waagaas laga soo bilaabo Cameroon oo gurigeeda ku ciyaaraysa marnaba dhinaceeda dhulka lama dhigin ha noqoto ciyaartaasi ciyaar saaxiibtinimo ama ciyaar rasmi ah labadaba taasoo ka dhigan haddii aad doonayso Cameroon inay doorkan ka adkaato ka ganacsiga ciideeda inay tibiso rikoodhka lama arkaanka Cameroon markan waxa ku baysan tahay ciyaartoy waaweyn oo kamid yihiin goolwadii hore ayagiisa haddana heshiiska la gaaray kooxda Inter Milan ee Andre Onana ikambe oo ka tirsan kooxda Lyon ee France Andre Frank Engeza oo isna ciyaar kooxda Napoli Choupo-Moting oo xog weyn reer German ee Bayern Munich u safta iyo Vincent Aboubakar oo durtan tartankan ka dhaliyay 4 gool Nigeria Cameroon hadaynu ka hadalnay ku xijina dalka la jaarka ah ee Nigeria dalka ugu dadka badan la qaaradan Afrika kuna guuleystay tartankan 3 goor oo ay u dambeysay sanadii 2013
Nigeria koobka qaramada Afrika shaxda ay ku soo gashay waxaa dhooban ciyaartoy heer caalami ah sida Wilfried Ndidi iyo Iheanacho oo labadooduba u ciyaaraan kooxda Leicester City, kabtanka qaranka William Ekongo oo u safta kooxda Watford, iyo Alex Iwobi oo isna u ciyaara Everton. Ghana aynu uga sii taloonin Nigeria dalka kale ay jaarka yihiin ee Ghana, The Black Stars, xidigaha madmadow, xulka ugu nasiibka xun la koobka qaramada Afrika, iyadoo oo Ghana intay 5 jeer final gaadhay 5 jeerba laga qaaday. Waxaan oran karaynaa waa Juventus Africa. inkastoo oo Ghana aan dabiir shidan oo koobkan Afrika ay qaaday tiraba 4 goor, sanadkan waxay ku iibeysan yihiin ciyaartoy waaweyn oo ay ka mid yihiin walaalaha ilma Ayu, Andre iyo Jordan, Mubarak Wakazu, Thomas Partey xidiga kooxda Arsenal, iyo Daniel Amartey oo daafac uga ciyaara kooxda Leicester City. Ivory Coast galbeedka qaaradda Afrika ayaynu dhex mushaaxinayay markana aynu diiradda saaro Ivory Coast, dalka ku guuleystay koobka qaramada Afrika 2 jeer, sanadihii 1992 iyo 2015. xidiga waaweyn bay ku soo dagaal gasho ay kamid yihiin Sergio Aurier, Eric Bailly, Franck Kessié, Emmanuel Cornet, Nicolas Pepe, Sebastian Haller oo ah ciyaartoyga ugu goolasho badan la sanadkan horyaalada Yurub ee Champions League, turtamana goolkiisii koowaad waa uu saxeexay tartankan dalkiisa Ivory Coast. Intaasun maahe iyo qaar kale oo badan. markana Senegal waxaan oran karaynaa waa Manchester City da Afrika, iyadoo awoodeedu soo shaabaxday sanadkan 22aad, waxaanay koobka Afrika finalkiisa gaadheen 2 jeer. Nasiib xumo laakiin labadii goorba waa laga adkaaday, iyadoo guuldarrooyin kasoo kala gaadheen xulalka Cameroon iyo Algeria. Senegal waa dalalka aadka ugu cadcad inay hantaan koobka kan ah, waxaana sanadkan matali doona ciyaartoyda waaweyn ay ka mid ka yihiin Sadio Mane, Edouard Mendy oo goolka u galay kooxda Chelsea, Khalidou Koulibaly iyo Ismail Sarr oo aanay marnaba ilaabi doonin taageerayaasha kooxda Liverpool. Masar aynu uga taloono galbeedka qaaradda dhanka iyo waqooyigeeda iyo dalka ugu koobabka badan leh koobka qaramada Afrika 7 jeerna ku guuleystay Dunya Masar. Francintu markan waxay ku gaashaamay yihiin ciyaartoygii ugu wanaagsan ee abid soo mara taariikhda Masar, Mohamed Salah, waxaana rajeynayaan inuu ka caawiyo inay tartanka ku guuleystaan markoodii 8aad. Tunisia haddii aynu markan eegnana waxaan oran karaynaa waa mid ka mid ah dalalka ugu cadcad inay hantaan koobka qaramada Afrika sanadkan. dalkan Carbeed oo kaliya ku guuleystay koobka qaramada Afrika hal mar oo ahayd sanadii 2004 oo ay martigelinayeen koobkan, ayaa u socda sanadkan inuu ku guuleysto markoodii labaad. Morocco iyana waa dal ka mid ah dalalka ugu cadcad hanashada koobka qaramada Afrika sanadda 2022. dalkan halka markuu guuleystay koobka qaramada Afrika sibahan sanadii 1976 markaas oo lagu dhigay dalka inuu jaarka nahay ee Ethiopia, ma awoodi doona inuu noqdo dhaxalaha Algeria. xidigaha u ciyaaraya ay ka mid yihiin Ashraf Hakimi iyo Soufiane Boufal ma awoodi doonaan inay koobkan geeyaan ciidoodii hooyo iyo dalkoodii Morocco. Algeria markan si aynu guda galno Champions Africa, Algeria xulka qaranka Algeria oo haysta mid ka mid ah silsiladaha guuldarra la'aanta ee abid taariikhda ugu dheer kubadda cagta marka la eego dhanka xulalka, iyadoo aan tiraba 35 ciyaarood dhinacooda dhulka la dhigin, inkastoo habeenimada xalay ahayd ay soo afjartay xul aad u yar. waxaanu sheegaynaa waa Equatorial Guinea oo kaga adkaatay natiijo 1-0. Algeria waxay ku gaashaamantay ciyaartoy waaweyn oo superstars ah oo ugu horeeyaan Riyad Mahrez, Islam Suleymani, Ismail bin Nasser, Yusuf bin Leyli, Sufyan Figholi, Said bin Rahma oo mashiinka kooxda West Ham iyo qaar kale oo badan. tartanka qaramada Afrika waxa uu ka kooban yahay 6 group ayaynu ka horeynay waxa ku wada jira 4 dal ee kala ah Cameroon, Burkina Faso, Cape Verde iyo Ethiopia, halka ay gurubyada ku wada jiraan Senegal, Guinea, Malawi iyo Zimbabwe. Group C-na waxaa ku loolami doona 4 dal ee Morocco, Gabon, Ghana iyo Comoros. Group D-na iyana waxaa ku wada jira xulalka Nigeria, Masar, Guinea-Bissau iyo Sudan, halka Group E-na ay fooda isku dari doonaan Côte d'Ivoire, Equatorial Guinea, Sierra Leone iyo dalka koobka difaacanaya ee Algeria. Group F-na waxaa ku wada jira Mali, Gambia, Tunisia iyo Mauritania. waxay la tahay inay wax badan kaaga bixin koobka qaramada Afrika ee haatan ka socda dalka Cameroon ee sanadkan 2022.
2022 adigana waxaan kaa codsanayaa inaad ku soo biirto kanaalka adigoo subscribe taabanaya gambalhalkan aad furato si uu ku soo gaaro muuqaal waliba markaan sidaa u soo galina muuqaalka kan ahna wax badan baad ka faa'iido waan ku jeedayaa ha kala bakhayrin inaad like garayso una sii share garayso asxaabtaada videoga kan ah intaan soo afmeerin su'aasheen isweydiinayna waxa weeyaan ma muruqa weyn taas sagaalka dalayna soo xusnay ayaa ku guuleysan doona koobka Afrika sidii dhacday 2012 ayaa dal yar oo sida Zambia oo kala ah iyaga oo sagaalku sidaa u eegaya uu hortooda ka dafido nagu reeb raayigaaga sanduuqa faalooyinka ee hoose sidoo kale waxaad magac dhabtaa dalka du rajaynaysa inuu koobka qaramada Afrika sanadkan ku guuleysto aad baad mahadsantihiin muuqaalka xigeentan isugu iman doono oo isna aad u xiiso badnaan doona nabadee assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh كنا وموقعنا حساب بدن وعينو كسامينة كبدة عكت كنال كنا نهراء نسوق لينية جوتشي كادونتو